بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرشحين تحكم بينها لما شعب الصومالي ميل جوجان بعد الصحافة هذه على ما سنتين شركين الجرائد وحكوا سابسين هاي وهي كل عايشة لي مقالة المقصية بين هنا يؤركتد المشرحين سيد اللو قاري كرحل كؤادن حنان كدور شوين marka hore waxaan rabnaa inaan mahad celino shacabka Soomaaliyeed ee joogaanba sidii garab u istaageen fikirka wanaagsan ee ah in la helo doorasho xor oo xalaal ah si dowladnimada hanaqaadka ay si hanaqaado looga mahad celiyo taageeradooda looga mahad celiyo soo baxa ama isku dayga taasoo qodobka labaad inaan u tacsiyeeno cid kasta oo dhib ka soo gaaray gobolkii aan lahayn farmarsinyada ee la gaarsiiyay dadka Soomaaliyeed ama damiirkooda la gaarsiiyay ama maskaxdooda la gaarsiiyay ama jirkooda la gaarsiiyay xorriyadooda la qaaday inaan uga tacsiyeeno aad iyo aad ugu xunnahay wax shacabka Soomaaliyeed u qaldan ma aha waxay sugayeen ma aha Soomaaliya waxay xogtahay 60 sano in ka badan waxay soo burbursanay waqti dheer maanta waxay ahayd dadka Soomaaliyeed inay xorriyadooda dareemaan meel ay joogaan laakiin nasiib darro waxaad aragteen dhacay qodobka mahadcelinta markaan ka soo gudbo madashu qiimeyn iyo falanqeyn kadib waxay go'aansatay in la sii wado mudaaharaadyada waxayna u arkaan inuu yahay nidaam xadaari ah dastuuri ah caafimaad ah u wanaagsan dalka qofkii doona madaxa ahaado isla markaasna keenaya qofka Soomaaliga inuu xor u yahay inuu dareenkiisa cabiro si nabad ah waana tii murashaxiintu ay ku baaqeen ay ka shaqeynayeen loo soo weeraray naftooda halis loo geliyay dadkoodii la dilay la kala ceyriyay mabda'aas waxaan u aragnaa mabda' wanaagsan dhaxalgal ah dowladnimada u fiican aan marnaba laga tanaasuli karin inuu wuxuuna xiriir la leeyahay laba shay oo waaweyn mid waa hanaanka dowladnimada midna waa xorriyadda qofka oo aan labadaba laga tanaasuli karin arrinta saddexaad waxa waaye مسؤولية دمانته وحصارها عن دولة عيدا ماذا لا أديك سدي ولو أديك سدك إني بلان أرجع بحيان جوجيان الرياض قاعدان ما حدا هيك أمر قاعدين هايين حلكوا دوار أمر لا بش هم كاسكودر سنتي ما حدا يحلك يضل ماضي هي فلكة اللي سمينا عن شرعي هين labadaas waxay ku yihiin dowladnimada Soomaaliya dhaawac aad iyo aad weyn waxaan ognahay waqtiga iyo dadaalka laga galay dhismaha ciidamada qaranka iyo meesha laga keenay maanta waxaa nasiib darro ah wiilasha dhalinyarada ah waan ku naaloonay inay qarannimada dibadda u aasaan inay dad Soomaaliyeed oo mas'uuliyiin ah oo raba inay dareenkooda muujiyaan doobna ka qaba nidaamka doorashooyinka iyo dib u dhaca inay soo weeraraan waxaan rabnaa inaan hoosta ka xariiqo ciidanku wuxuu ku dhisan yahay sharci wuxuu ku dhisan yahay mabaadi' dowladnimo hadduu ka gudbo wuxuu noqon ciidan ma aha halkaas in la fahmaa ciidanku wuxuu ku dhisan yahay sharci hadduu sharcigaas ka gudbo ciidan ma aha wuxuu sameynaya waa faldambiyeed qofka sameeyey iyo qofka soo diray labaduna waa dambiilayaan ilaahay idankiisa maalin waxaa imaan doonta عدالة الهول له كندو شالي مركا ديسين سي هاجر لآن ضد نماء أيام ودسنا وأو هاجر بحنا ما أنت إنه لو أديك سلو آد روحنا وحي جبيين حنكي قرن مضي وحي ندلك أوهر سيدة نية جب هي ضدك صوما لأنه كهن جبان إلى مدى قلب كسيدة سيدة استرتي وحالينا أسوى لابتا عقلقين أسوى لابتا شرعية annagu waxaan dhisayno iyo waxaan u taaganahay waa dowladnimo
haddaad u haysatin inaan dana gaara ka shaqaynayno dana gaara kama shaqaynayno danahayna waan ka soo tagnay waxaan u taagannahay qarannimadu inay istaagto dalka in doorasho uu galo waxa ugu weyn oo maanta in laga shaqeeyo ay tahay kaas waay yaa ku guulaysanaya macno gaarana uma samaynayso waxaan rabaa mar kale inaan ku celiyo arrinta xurriyaadka madashu waxay ka taagan tahay meesha ugu dambaysa waa lama taabtaan xuquuqda dastuuriga ee sharciga oo ballan qaaday arrintaas diyaar uma nihi inaan ka kaftan waxaan rabnaa inaan ku celino banaanbaxeennu waa banaanbax nabadeed waxaan ku muujinaynaa dareenkeenna dareenka ugu badanna waxaan ka qabnaa madaxweyne xilkiisu dhammaaday ee aan oggolayn doorasho ee aan oggolayn banaanbax sida doorasho loola geeyo waxaan rabnaa dalka inay ka dhacdo doorasho xura oo xalaala oo loo siman yahay mana muuqata arrintaas xuquuqdaas asaasiga ah oo qof kastoo Soomaaliya uu leeyahay waxaa sharaf noo inaan hogaaminayna maanta ilaaha ku mahadsan shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u jeedino mar kale banaanbaxyada laga soo qayb galo xurriyaadka la taageero maanta ay qabasho leedahay hadday halkaan dhaafto qofka maanta shabaab asoo kor taagan waxaa soo tignika keena inuu dad ku dilo dadkaas oo dalbanaya xurriyad iyo banaanbax ani waxaan aaminsanahay lama aamini karo waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warkii rasmiga ahaa ee golaha gudoomiyaha ayaa halkan ka sheegay waxa aan anaga aan rabnaa waxay tahay inaan warkaas soo xoojino si adkeena ayaan rabnaa wixii shalay iyo habeen hore dhacay intii waxay cadeynayaan waxaan anaga hore u ogeyn ee si cadeynayaan oo shacabka Soomaaliyeed iyo caalamka ay u cadeeyeen anaga hore waxaan u ogeyn farmaajo inuusan rabin doorasho lagula tartamo oo xaq oo xalaal inuu qabto inuu rabo inuu waddankaani ama extension ha ku sii joogo ama doorasho aan xalaal ahayn oo boob ha ku sii joogeen inuu meel ka aado talada iyo xukunka dalka inuu meel ka aado inuu sariir anoo awal waa ogeyn waan noo cadeey laakiin waxa alxamdulillah shalay inuu dadka Soomaaliyeed guud ahaan iyo beesha caalamka iyo ummadda dhan u cadeeyay inuusan meeshaas ayada ah usan u socon kadib markii mudaharaad nabadeed iyo dad nabad u socda oo mas'uuliyiin Soomaaliyeed iyo shacab Soomaaliyeed uu xabadda nool u adeegsaday iskuna diyay inuu dilo waxaan anagu aaminsanahay farmaajo in mandatekiisii iyo sharciyadiisii ay dhamaatay 8 February shalay oo 19 Febraayo ay ahaydna murashaxnimadiisa dhamaaday oo soo xiray baabkii murashaxnimadiisa saadaradeed sharciyadiisa madaxweynimada ma jirto murashaxnimana shalay ayuu soo xiray maadaama uu noqday in dambiile ah oo faldambiyeed iyo dhiig faraha kula jira dhiig iyo faldambiyeed faraha kula jirana in lagu abaalmariyo inuu madax sii noqdo suurtagal maaha sabab inuu madax sii noqdo loogu aamini karaa ma jirto anagu waxaan rabnaa dowladnimada Soomaaliyeed inay taaba gasho anagu waxaan rabnaa muqaadiyad iyo xorriyad iyo dal iyo dowladnimo dhisanta ayaan rabnaa intaan odayaasha oo saaxiibada ay taagan waa dadkii dowladnimada Soomaaliyeed ee maanta aan ku nooloonayn iyo hay'adaha iyo institutionada noo dhisay maanta aan ku nooloonayn soo dhisay nin walba maalmaha ka mid ah ayuu hay'adaha dowladda joogay dhagax buu wuxuu ku biiriyay dowladnimada Soomaaliyeed qof kale oo ka dambeeyana dhagax buu ku sii biiriyay sidaas ay dowladnimada maanta aan joognaay ayay ku soo gaartay nin walba anaga naga madan wuxuu marashax u yahay meesha maanta ay joogtahay meel ka sii sarreysa ama geyn kartaa waa naguma jiro qof dalka inuu dib u laabto ficil ama haba yaraatay naguma jiro naga mana suurtagal lahayd ma ay farmaajo waxaan dhihi karnaa shalay
يا هبين هربي أوسمي حينداب كدول الموقع ذلك أنا بقول طبعا إنه دايركشن كله أو دجال السكية يبرد يبابا إنه تجيديو أيوه طبعا لكن الحمد لله يا شعب الصومالي أنا ربنا إني runtii ku jiiftaan directionkaas dalka uu rabo inuu u leexiyo haddaan la wadi lahayn oo habeen hore wixii dhacay wixii shalay dhacay aan anagu directionkaas inaan la aadin aan la wadi lahayn maanta muqdisho siday tahay iyo dalka siduu yahay ma ahaaday garashadeena noo diidaysa mas-uuliyadeena noo diidaysa dadnimadeena noo diidaysa in uu nagu qasbo naguna riixo meel aan sax ahayn oo aan dalka nagana u roonayn dadka nagana u roonayn inuu riixo garashadeena diidaysa laakiin waxaa xaqiiq ah asagu waxa uu go'aansaday waxay tahay ama inuu kursiga joogo ama inuu dalkan dagaal sokeeyey iyo burbur iyo baaba geliyo go'aansaday waxaan laga rabaa marka dhammaanteen shacab iyo mas-uuliyiinba inaan ninkaa asaga gacmaha qabanno suusan dalkan naga nooga baabi'in dowladnimada nadan uusan nooga burburin inaan gacmaha qabanno ayaa laga rabaa annagu marka waxaan u taaganahay waan murashaxiin haddaan nahay u taaganahay ka soko inaan murashaxiin nahay dalka iyo dowladnimada inaysan naga burburin dalka iyo dowladnimada waa burburaysaa haddii dictatornimo dalku tahay dictatornimada muddo kastoo jirtaba natiijadeeda waa la yaqaanaa waa dalku duun dowladnimadu duun meeqa dal ayaa dictator ka talinaya oo afrika ugu dambeeyna ay duunta kenya ka mid ah dictatornimada natiijadeeda waa sidaas ma hadli kartid dareenkaaga ma cabiri kartid حرية من ولا أنت تي أنا يكلي واحد شيء هون واحد دول النمي يضل وكبس نانكر معه ما أنت هنا قواش لا ده ما أنت قفل نوع عاسق عن ترى قبل ما أنا اللي قبل كذي وضلك ضلك ونجيب البرونية يا الجارية أنا مركو حان قبنا حان ديار ونهاي ندري هذا الصورة فوق سنة ده أول سنة من أول بقى أنا نجمد وكان بينك بيسوي إن ضل كان الدور شجره لغو ترتمو قف انتنا مرشحين تكمل اهل وغوليستو لكن ني waxaan u jiro murashaxiin ta kamid oo farmaajo la yiraahdo oo ila tartamana aan heli doorasho nadiif oo hufan in la galana aan heli ayaan naga mid ninkaas marka waa iska qabasho waa anagu waxaan ninkaas u haysanaa nin dambiile fil dambiyad gal gacmihiisa diib uu ka qubanayo saxan aysan ahayn in uu tartamo oo baabkii tartankiisii dowladnimadii uu soo xiray asaga dhankiisa ayaan u haysanaa waxaa soo haray nagu waxaan wadno waa ixtijaajaad oo silmi ah mudaharaad iyo banaanbaxyo nabadeedaan wadnaa aanu ku doonayno dowladnimada iyo dimuqraadiyadda inay ku taaba gasho mana joojinayn waa wadayna waa xarb dastuuri oo annagana aan leenahay qof kastoo muwaadin oo soomaaliyeed uu leeyahay shacabkii soomaaliyeed ee soo banaanbaxay boqolkiiba boqol aad u mahadsiiyey madaxweynuhu wuxuu ku doodaa shacabka anay qabaan shacabka dhammaantood anay taageersan yihiin haddii marka shacabku asaga rabaan oo ay taageersan yihiin shacabka xoolaha ka dhigo baabuurtan iyo jidadkan u xiraaya ha dhaafo beri marka inteena 30 qof 40 qof 50 qof 100 qof aan dhaafi weyno dadka aan soo bixin aan dhaafi weyno markaas waxay cadaanaysaa rabitaanka shacabku inay madaxweynaha raacsan tahay iyo inay dadka ka soo horjeedaan ay raacsan tahay laakiin haddii madaxweynuhu ciidanka iyo caburinta waxa uu isticmaalaya loo jeedo macnaheedu waxaa waaye rabitaanka dadka kuma joogo dalkana kumana xukumi doono waxaan ka rabnaa madaxweynaha ama madaxweynaha xilkiisa u dhamaado waxaan ka rabnaa farmaajo in haddii shacabka asaga uu rabo iyo hadduusan rabin shacabka xorriyadiisa uu dhaafo shacabka asagaa cabiraya asagaa hadlaya hadalka dadka iyo xorriyadoodii midkooda hala dhaafo beesha caalamka waxaan rabnaa waan u jeedinaynaa waxa uu farmaajo samaynayo waa ogyihi waana u jeedaan inay ku fiirsadaan sax maaha inay ku garab galaan sax maaha inay ku dhiirigeliyaan sax maaha maxaa yeele hadday ku fiirsadaan iyo hadday ku dhiirigeliyaan taas macnaheedu waxaa waaye waxa uu samaynayaa dictatornimada ah oo xorriye ku tumashada ah inay raalli uga yihiin ayay macnaheedu tilmaamaysaa waxaan usoo jeedinaynaa shacabka soomaaliya siday shalay u hiilin jireen una soo hiiliyeen maantana waxay u hiiliyaan hiilay uga baahan yihiin hiilkay uga baahan yihiin waxay tahay dowladnimo u taabagasha iyo xorriyaddooda iyo dimuqraadiyaddooda in la taabageliyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله
dhammaan waa salaamantihiin dadkii hadalkooda dhamaystir lahaa ama laga hadli lahaa ma ahan laakiin waxaan rabaa dhowr qodob yar inaan idiin sheego midda koowaad waxaa wixii dhacay waxa dhacay waxay ahaayeen mudaaharaad laysu istaagay maya ma ahayn waxay ahaayeen isku day dil dhammaystiran bay dadkaan aqaani waxaan u sheegayaa ciidanka markii la tababarayo waxaa lagu tababaraa xabaddu waa inay qoriga ku jirto amba ay qof ku jirto xabadihii maayida laga riday hotelka lagu ridaayay rag baa la rabay oo u qoondeeyay farmaajo inay ku dhex jirto oo labadii madaxweyne hore iyo gudoomiyihii baarlamaanka ay ugu horeeyaan xabadihii shalayta la ridayna waxay ahaayeen xabado loogu talagalay inay dadku dhex jirto askariga waxaa la baraa waa idinku celinaya xabaddu waa inay qoriga ku jirto amba ay qof ku jirto dadkii mudaaharaadayay oo ra-iisul wasaarihii hore ugu horeeyay ayaa loogu talagalay inay ku dhex jirto waxa dhacay marka waa isku day dil dembi caadi oo dowladaha qofka caadigaa lagu dacweyn karaa qofka aan lagu dacweyn maayo amarkaas qofka bixiyo farmaajaan ku dacweyn taasi waa qodobka labaad waxaa weeye markaaga inaad hadasho qofka ku jira markaaga inaad xukuntana ma ogola fagaarayaalay ka hadlaan fagaaraan rabna inaan ka hadlo fagaaraha hadalkiisa qofka hor istaagay in inta doorasho ay dhacdo oo sanduuqa looga adkaado xafiiska lagala wareego ma aqbali karo shalayta waxaa la diiday daljirka daahsoon in lagu qabto banaanbaxa kaltanka daljirka daahsoon ninka diidan kaltanka villa soomaaliya laysu badbedelayo ee asaga uu ku yimid ma aqbala qodobka xiga waxaa u yahay mudaaharaad qofka aan u adkaysan karin oo in asaga loo mudaaharaado maahayn aan aqbali karin qof kale inuu mudaaharaado uma adkaysan karin in qof kalena la doorto waxaa soo dhaco idil waxaa looga jeedaa marka in arrimaha lagu hor istaago nuxurku waxa uu yahay dal aan mudaaharaad ka dhici karin doorashada 17 September iyo doorashooyinka iyo maamulada iyo isu yimaadaan ayaan marar badan maqalnaa internationalka aan ka maqalnaa meel aan lagu mudaaharaadi karin iskuma dooran karo ilaa mudaaharaadyada aan damacsanaa ay meel ka maraan dalkaasi waa in la xaqiiqsado qof kasta oo xaaladaha Soomaaliya ay khuseeyaan in wax doorasho ka dhici kara aysan jirin haddii mudaaharaad xor ah oo xalaal ah uusan ka dhicin midda sii hartay waxay tahay dowladda ka soo shaqeeyay dowladda aad wax u fahamsan dowladda taageeradu ka dhamaatay iyo madaxda dowladda dadkooda ay diidan yihiin oo isku mashquulaya masawirkaas iyo masawirka dowladdiisa oo kala jiro aysan dowladdiisa u muuqan inay taageersan tahay nidaamka dowladdiisa taas waa fariin aan u dirayo diblomaasiyiinta masawirka dowlad markaa taa diblomaasi waxaa la kala jaraa dowladdaada iyo dadkaas ama dowladdaas la diiday kelimada ugu dambaysa waxaan u jeedinaynaa aniga saaxiibaday ciidamadan u jeedinayna laba arrimood u sheegay horta ninka amarka idin siinayo nin sharciya ma aha waqtiga oo ka dhamaaday maslaxad qaran iyo mid dal iyo danguud oo ku maqan yahay amaradiisa ku caddan yihiin ma jirto dadaa xoogaas in la dilo rabaa dastuurka in lagu tutoo rabaa dadku inay iska hor yimaadiin rabaa dowladdu markay dunto ciidamadu ma dhisnaadaan laakiin dowladdu markay dhisan tahay ciidanku dhisan yahay marka inuu ku amrona xaq sharci uma laha waxa uu ku amraayana danguud ku amraya inaa ka diidaa kulasi waa maxsanti Vamos, cada uma.